السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. markaad maqashid magaalada Hiroshima waxa maskaxdaada ku soo dhacaya inay tahay magaaladii ugu horeysay ee loo adeegsaday hub nukliyeer. maanta waxaan barnaamijkeena ka hadli doonaa taariikhda magaalada ee nala daawo ilaa dhamaadka. waa magaalo ku taal waddanka Japan, waxay ku taalaa jasiiradda Honshu, waa caasimadda gobolka Hiroshima. magaaladan waxaa la aasaasay sanadkii 1594. magaaladu waqtigaasi waxay ku tilaabsanaysay horumar ballaaran oo dhinaca dhismaha iyo ganacsigaba ah, waxayna magaalada leedahay dekedda ugu caansan waddanka Japan. waxaana leedahay magaaladu warshado badan sida kuwa dharka, cuntooyinka iyo sharaabka soo saara. tirada dadweynaha ee magaaladu waa 2 milyan, iyadoo magaalada sanad walba ay soo booqdaan dalxiisayaal badan oo ka imanaya daafaha dunida. magaaladani waa mid 2 jeer dhalatay, markii la aasaasay markii labaadna waa markii ay ka soo noolatay geeridii ku dhacday sanadkii 1945 markaas oo lagu riday hubkii ugu horeeyay ee nukliyeer ah ee loo isticmaalo abid aadanaha. sanadkii 1945 dagaalkii labaad ee adduunku waxa uu marayay gabagabo, sida markii uu Jarmalku saxay isdhiibashadii bishii May ee sanadkaasi, waxaana Mareykanka ku soo haray dagaalkii uu kula jiray Japan. ciidamada Mareykanku waxay muddo 2 bilood ah magaalooyinka Japan ku garaaceen diyuuradaha sida hubka caadiga ah, iyagoo sameeyay dhowr isku day oo ku doonayeen in ciidamadoodu ay ku degaan dhul weynaha Japan, laakiin markii ay yaqiinsadeen mar walba ay dhulka ka dagaalamaan ay soo gaadhayso khasaare lixaad. isla waqtigaasi waxa culimada Mareykanka, Ingiriiska iyo Kanada ka howlanayeen mashruuc ay ugu magac dareen mashruuca Manhattan si ay u sameeyaan hub aan hore loo arag oo ah hubka nukliyeerka. waxaana mashruucan hogaaminayay caalimkii u dhashay Mareykanka oo la oran jiray Robert oo ku takhasusay cilmiga fiisikiska. hubkii ugu horeeyay ee lagu rido magaalada Hiroshima waxa laga sameeyay macdanta uranium-ka nooceeda loo yaqaan 230. waa nooc naadir ah sida loo helaa, iyadoo hubkani yahay mid si weyn u kala baxbaxa, kaas oo dhala malaayiin jeer walxaw sii qarxaya marka laga reebo qaraxa koowaad. waxaana tijaabadii koowaad ee hubkan la sameeyay 16 bishii 7 1945, taas oo lagu tijaabiyay meel bannaan oo ku tirsan gobolka New Mexico ee Mareykanka.